بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعنا ونكسن داودياشada qiimaha iyo qaayaha loo meel badbaadinaya daafida ka joogteen ku soo dhawaada Mansur Media ana Abuna Abdul Yusuf barnaamijkeena podcast-ga alaba waxaan idin kugu keenaa ashqaasta bulshada dhexdeeda qiimaha ku leh awase waxaan idin wadaa mid kamid ah haldoorka dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada u ololeysa barashada diinta Islaamka iyo ku dhaqankeeda Asad Abdul Haji oo ku magac dheer Asad Zain Asad Suluw abwaani waa dhawahay mahadsan tahay kulay waxaan rajeynayaa bahda Mansur Media iyo walaalaha ku xiran ba meel kasta joogtaan garab istaag fuula inaad u muujisaan abwaanka runtii uu mudan yahay aniguna waa ku dhawahay caawa barnaamijkaaga aadana u mahadsan tahay mar koobaad iyo mar labaad ma noqon doono barnaamijkan ka qabanayna ama wareysigan ma noqon doono waxaan rajeynayaa inuu marar kale badan noqdo insha Allah taala waa rajeynayaa inaan soo laabtaan okay asadu qof walba waxa jirta taariikh asaga uu leeyahay oo gooni ah oo ka qayb qaadatay koriinadiisa iyo qofnimadiisa haday noqoto caqabado haday noqoto guulo haday noqoto waqtiyo qurux badan anagoo dhan waqtiyo qurux badan oo soo qaadano nolosheena ku jiray wax yar baan rabaa inaan intaan barnaamijka mowduucani ugu weynaa aan u gudagelin inaan gadaal kugu celiyo bal waayahaagii dhalinyaranimo halka ah ku dhalatay soo barbaaridaadii iyo waliba waxbarashadaadii barashada gaar ahaan diinta Islaamka waa mahadsantahay abwaane runtii aniga horta kale waxaan kamid ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed qurbaha ama banaanka wadanka wax ku bartay kuna koreen laakiin sadalkii ku dhashay aniga markii hore waxaan ku dhashay gobol yiraahdo Gedo khaasatan degmada Buurdhubo marka anigoo yar baa la keenay dalkan Kenya waxbarashadeeda dugsi hoose dhexe ilaa iyo dugsi sare waxaan ku qaatay meel yiraahdo Xagardheer oo ku taal Eastern Kenya khaasatan Garissa County marka waa iska xiraq qaxooti laakiin waxbarasho tayo leh oo runtii maanta anagana ma anfacday dad badan oo walaalo ahna anfacday baa runtii aan ku soo qaadanay alxamdulillah dugsigeygii quraanka halkaas ayaan ku dhameeyay kadibna waxbarashadeedii kale ayaan galay oo maadi leh iskuulkan markii hore ku bilaabay waxbarashadeeda qaybta maadiga markii dambe oo aan soo yara weynaadayna qaybta diiniga ayaan u gudbay ma sha Allah waxbarashada oo soo noqonaya qiyaas naga sii Buurdhubo baad ku dhalatay waa gobol kamid ah gobolada Soomaaliyeed dadka wacyiga waqtigaas markii loo eego xilliga aad ku dhalatay ama soo koriinadaadii intii aad ku soo gaartay dhalinyarada bee'adaas ku nool maanta ay tuhmaag nooca ayaad ka bixin kartaa wallahi horta aniga asad ahaan waqtigan meeshaas aniga yar baan ku dhashay waa laga soo kaxeeyay runtii wax badan kama xasuusto aniga waxbarashadeedaba asaaskeeda waxaan ku bilaabay meeshan hadda ku sheegay Nordistan marka wax hadda qiyaas rasmi ah oo aan ka bixin karo runtii meeshaas iyo deegaankaas mana sabto amana garanayo lamana soo korin laakiin waxaan rajeynayaa dad kale inay tahay qax iyo dhibaato iyo rafaad iyo hawlo badan iska haysteen wana dareemi kartaa dalkii markuu burburka galay dadkii walibaana waxaan ahayn 90-aadkii dhamaadkoodii dhashay marka wax meeshaas inay waxbarasho badan ka jirin baan markaas filahayaa deegaankii markay ka timid waxaad soo gashay Northeastern Kenya gaar ahaan xariyaha qaxootiga sida adigu aad ka dhawaajisay ama dadka qayb kamid ah fikir waxay ka haystaan qaxootigu inay meel aad u dhib badan nolosha dandara fara badan ay taalo aysan jirin bad dadka guuleystay ama horumar ka sameeyay aragtida wallahi abwaane horta labaha aan markan u kala qaadno xirada qaxooti markii la yiraahdo magaca waa magac iska dhib badan meeshii la rabana loo qaado runtii waa run dhibaato badan way ka jirtaa meel ma aha caasimada meel ma waxa rabtaad ka heli karto maaha meel ma ahan macnaha daryeel badan oo macnaha caasimadaha iyo meelaha waaweyn yaala ma aha laakiin haddana saas ay tahay markii aad haysato waalidiin runtii dhabar adag inaad bixin wax noqotana doonayo ayagana meesha ay joogaan ku qanacsan ilaahina aaminsan waxay soo saaraan dad badan oo tayo leh runtii tusaale dad badan oo waxa jira caalamka maanta ku nool oo qaxootiyahan ka soo baxay waxna maaragtay ka noqday caalamkan hadda maanta horumaray in badan oo kamid ah inuu garanayno marka labadaas bay isku jiraan laakiin nolol ahaan waa meel iska yara hooseysan runtii dabaqada waliba hoose ay ka jirto ay aad uga jirtaa waxaa lagu tilmaami karaa adiga iyada inta wax noqotayba dinosaurkii dabar go'ay halka lagu tilmaami jiray bulshada haldoorkeedii waayo meel caqabadaha faraha badan ay ka jirto oo laga yaabayo wax badan nolosha necessary oo ah ama daruuri oo ah inaysan ka jirin inaad wax ku baratid
u dulqaadatid bal cilmila ahaan wax yar fikri waxaad ka siisaa si kooban xilligii aad wax baranaysay iyo maadi iyo diinigaba alasha adaygeedii facility-ga sida uu kugu soo geli karay wallahi waa su'aal fiican runtii dadka inta badan qaxootiga markii la joogo ayadoo qaxooti la wada joogay haddana dadku dabaqaad kale leeyihiin runtii horta qaxootigu yani wixii ka dambeeyay 2004 dadku xoogaa inta badan waxaad moodaa in loo wada baxay oo qurbaha la wada aaday meelo badanna ay biilal iyo wax iska qaadan jireen alxamdulilah anigu kuley hooyaa isoo korsatay intaan maaragtay ilaahay cimrigeeda ha barakeeyo inoo shaytaan ka xasuusto aabbana runtii sidoo kale asagana garab weyn buu noo ahaa loo naxariisto marka meeshaas iyada ah runtii qofkii fikradiisa inuu wax barto oo uu wax noqdo oo uu bulshadaas wax u qabto ku fikiraa markuu soo hana qaadayo helo macallimiin garab istaagtay iyo waalid runtii dhinacihiisa taagan waxaan aaminsanahay aniga iyo dhalinyaro kaloo badan oo naga sii fiicanba inay meeshaas kasoo baxayn haddana kasoo bixi karaan horeyna uga soo baxeen marka waxaan oranaynaa totally waa fikir qaldan walow si walba nolosheedu ay u hooseyso laga yaabaa xataa inay deegaano badan oo Soomaalidu ay degto dalka kamid ah ay ka opportunity fiican ka fursad waliba waxaan aaminsanahay aniga hadda aragtidayda iyo meeshaas aan kasoo arkay runtii Soomaali cid ka maqnayd ma lahan meeshaas markii barnaamijkan qabiilka laga hadlo Soomaaliya dhan baa isugu timid dhalinyaro iskuulada wax ku wada barto banaanaha ku wada ciyaara waa la isjecel runtii oo xitaa qabyaaladda iyo maaragtay waxyaabaha Soomaaliya gudaheeda ka jiray aanay ka jirin meesha marka waxbarashada markeen u imaana xagga tayada wadamada waa caasimadaha iyo meelaha maaragtay yani waaweyn lagu nool yahay fursad ahaan waxaad moodaa inay ayada kaga fiican sababtoo ardayga markuu helayo waxbarasho free ah guriga uu degan yahay ay tahay free sidoo kale biyaha meesha walow biyaha la doonto laakiin meesha uu biyaha ka helayo ay free tahay isbitaalka iyo caafimaadkana inta badan uu free wixii ay gacanta ku hayso marka waxaad moodaa xoogaa nolol yar oo maaragtay just waana dabaqii baana ka dhisneen maahane xoogaa inay nolol yar ka koobahay macnaha inay dadku helayaan marka waa fikir qaldan runtii qaxootiga dad badan oo waxa ka soo baxay maanta adduunyada wax ka hogaaminaya haddana waxay ku xiran tahay sida adiga u dhaqanto dad badan oo ku halaabayna way jiraan waxa jira ayadana fikirka ah in lagu marmarsiyo ama qofku uu yiraahdo waxbaan baran lahaa laakiin waxba ma haysan ama waalidkiisa sabool bay ahay laga yaabaa qof dad badan waxa jira haysta meel opportunity-gaas ka jirta ama hay'ado ay waxbarashadii iyo caafimaadkii bixinayaan ama dawladdu bixinayso laakiin isu arka asoo maadaama uu sabool yahay inuu waxbarashadu wax macna weynayso inuu sii fadhiyo wallahi fikirkaas fikir aad u qaldan waa sababtoo ah markii la joogo xiriyaha inta badan waxa loo yaqaan basic needs-ka saddexda shay ee qofka ugu muhiimsan ee waxbarashada iyo amniga iyo maaragtay caafimaadkiisa ah hay'adaha joogo oo meeshaas inta badan ka taxadara dadka oo wax badan la qabto runtii oo wax badanna maaragtay tashiilaad ana u sameeyay walow ay jiraan dad badan oo ka maarmay hay'adihii iskuulo oo private ana ilmahooda geysto marka qofkii aanan awoodin iskuul private inuu tago wuxuu awood u leeyahay iskuulada kale ee public ah iyo dawladdu leedahay inuu tago bale ayaga saxta markii tahay iyo waxbarasho taga fiican sababtoo ah had moodaa tartamo guud inuu ka jiro iskuulada ama private ha ahaado ama public ha ahaado badanaa iskuulada hay'ada waa iskuulada ugu badan ee ilmaha qurbaha aaday ka baxaan marka ma jirto yani caqabad dhihi karto qofkii inuu wax barto totally meeshaas uu ka waayay runtii dabaqada aad u hooseeya way jiraan dad aad masaakiin oo ducafaa way ku nool yihiin waa runtii laakiinse ma badno si guud markaan u qiimeyno caalamku dadka waxay kula tartamaan dadka saboolkaahi waxay dadka wax haysta ama tujaarta kula tartamaan waxbarashada laakiin anaga qofkayaga xoogaa jeebka yari wuxuu ku leeyahay inaan xamaasho nolosha iska sii bilowdo wadarkiisa way xarkiisa ilmo yar yar oo kabacsayaal iska noqday qayb kamid ah barashadayaal qayb kamid ah ay nolol kale iska xamaali iska galeen wadarkiisa cunug yar oo 10 jir oo nolol uusan qaadi karin xamilay walow duruuf u geysay haddana anagu aragti ahaan waxaan ka aaminsanahay waxbarashadu inay wasting time tahay oo waqti dhimista wuxuu leeyahay markaan wax barto oo dhowr 20 sano ay ka qaato haddana dib shaqo xamaali waxa bilaabay caalamka kale na wuxuu ku tartamaa dadka wax haysta waxa kaliya lagu tartamaa waxbarashada aragtidaas ayada dhalinyarada aaminti
والله إني هو أنا قهرت فكر أحن أسد هدان إسكاه الله رمجي فكر كان قف قهرت إن رفع الجهل عن نفسه مسميه وجهل نفسي صرت كقاضي وبريورتي لون بهاي هي أما الدين هنقطة أما مادة هنقطة قف قهرت إنه مركب هو بيزك إسكاريسو أما بيزك إسكاريسو أرمهانتي هذه نقطة إن محلي هذا ونقطة قف كان ورمحان بريك مع المستقبل كأني الربع إنها النقطة هذه نقطة horta waxbarashadu marnaba way bilaabataa mooye meel ku dhamaata malaha PhD-ga oo tamaanta weli cilmi buu u badan yahay uu sii baahayayo rabbi tabaaraka wa tacaala quraanku wuxuu ku leeyahay wa fawqa kulli dhi cilmin calim haddaynu u imaano xagga fursadaha iyo opportunity-ga qofkan muxuu dooranaya laba waay arday ku fiican inuu wax barto in maskaxdiisu furan tahay oo biri ka maalin laga yaabo hadduu waxbarashadiisa heer fiican gaaro inuu noqon karo hogaamiyihii ama leaderka berito ama uu noqon karo professorkii iyo qofkii biri jaamacadaha wax ka dhigi lahaa qofkan socod noocaas oo kaleeta waxbarashadana hami u hayo in lagu la dadaalo oo waqti la geliyo waa wax muhiim ah ardayda ama qayb waxaa jirta inta badan aanan waxbarashadii yani culays badan ka saaran yahay ama aanan danaynin ardayga noocaas oo kaleeta haddii basic koowaad laga dhiso uu waxna qori karo waxna aqrin karo waxaan aaminsanahay anigu saddex xigta ee uu wax u qabsan karo hadday noqoto inuu engineer noqdo hadday noqoto inuu mechanics noqdo hadduu noqdo inuu macnaha ardayga waxa laga yaabaa inaad ku cadaadiso wuxuusan diyaar u ahayn marka haddii ardayga wuxuusan diyaar u ahayn lagu cadaadiyo waqtigana lagaga lumiyo waxaa imaanaysa inuu waqtigana kasoo dhumay hadhowna uusan waxba qabanin marka kii waxbarashadan ku fiican ee diyaar u ahayn raba inuu heer sare ka gaarana waxaan dhihi lahaa fursad fiican baad haysataa hadiye haddii si uu qofkan uu u arkay inuusan waxan uusan qaban karin aniga hadda kula hadlayo markii hore san ku sheegay qaybta maadigan ku bilaabay maadigan dhigan jiray ilaa class 8 baan ka baxay KCPE markaan sameeyay laakiin waxaan soo arkay qaybtan maadigan aad u adag tahay aanan qaban karin kadib baan dhankan qaybta diiniga u wacday alxamdulillah waxbarashada diiniga aad ilaahay igu fududeeyay ilaa aan ka imaaday jaamacadda oo aan ka dhameeyay jaamacadda shahaadada qaybta koowaad aan ka qaaday oo waliba af carabi ku baxaysa islamic bachelor of islamic arts aan ka dhameeyay jaamacadda wadanka aad كبرنيسنا وسنها ودن إسلامي وصنعين لغة عربية اللغة marka macnaha halkaas waxay gaarsiisay hamiga aan u hayay diiniga iyo barashada iyo inaan macnaha markaas soo arkay inaan ku fiicanahay maadiga marka iskoolka la dhiganayo qof wax ku hada maadada kugu adkaysan ayada iskoolka dhanbaadaysi wallahi aniga asad ahaan maadooyinka markaas iyada iskoolka aan joogay guud ahaan ayagoo igu wada adkaayeen haddana maadada xisaabta yiraahdo isku sii fiicnay runtii iyo luqadda Soomaaliga caadiga wala wadan wadanka iska joogno iskala qabsanayo luqadeeni labaad iska noqotay laakiin waqtigaas iyada caqabad bad moodaa inay ugu ahayd inshaada la qorayo oo waliba maskaxda ka imaanayso grammarka caadiga oo la diyaarinayo waxyaabahaas marka laakiin diini guud ahaan wax maado iga hor imaaday ma arkin waxaan ka ugu inta ku soo qaadanaynay Zayn iyo taariikhdiisii oo runtii ina tusinaysay qofka ahaan kale ama doonaya inuu wax noqdo sida uu looga baahan yahay juhdiga ama uu asaga nafsadiisa isugu diyaariyo halka Soomaalidu ay ku mahmaahi jirtay asaan walba shilalka isdhigto ayaa lagu qalaa asad waxaan imaanaynaa waqtigaagii dad doonigii aad u soo biirtay maadigii aad tiri way u socon way diiniga laftirkiisu ma isla meeshii aad joogtay xaliyo qaxootiga iyo kaaga suura gashay ma waxay noqotay inaad u hayntid meel kale baad maya isla meeshii aan joogay baan dib uga bilaabay madrasa weyn waxa ku taala la yiraahdo Abu Bakr Siddiq kunti macallimiinteedii wax soo bartay iyo culimadii hadda joogtaba aad baan uga mahadcelinayaa Ilaahay xifdii meel kasto ay joogan kunti maalinkan madrasada tagayay wax badan igama bilownayn xagga diiniga laakiin alxamdulillah sanado dadaal iyo waqti iyo maaragtay culimadii oo masaajidadana nagu xirtay kutubadina noo bilowday syllabuska diinigana noo fududeeyeen akhrintiisa iyo maaragtay imtixaanaadkiisa iyo ku dadaalkiisa iyo tartankii ardayda dhexdooda ahaa ayaa waxay keensatay inay noo fududaato oo kadibna aan ka mid noqdo ardayda halkaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu fududeeyay inay labada qaybood ka qaataan qaybtii sagaalaadka iyo qaybtii kale ee thanawiyada markii la joogo waxbarashada diiniga ah dabcan waxaan garanaynaa dadkii diintan meesha ay joogto maanta keenay heerka keenay hadday noqoto saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabiciintii laga soo bilaabo dhalinyara
diinta juhdiga ugu badan bixin jirtay iyo xoogga ugu badan iyo dadaalka ugu badan dhalinyaradiina maanta joogtay ee diinta baranaysa door noocee aad ku leedihiin sida raggaas ay u dadaali jireen ay u soo jamhadeeyeen wallahi abwaani horta dadkaas dad la gaaraya ma aha dadkaas ilaahay subxaanahu watacaala baa doortay laqad radiya allahu cani lmu'miniin id yubaayicuunaka taxta shajara nabi maxamed baa lagu yiri ilahay wuxuu ka raali noqday dadkii geedkii baycatu shajarati geedkaas hoostiisa nabiga kula galeen runtii waqti adagna kasoo gudbay diintan oo saxaabada ridwaanullahi calayhim khaasatan nimankii ansaar loo yaqaanay reer madiina iyagoo ay weliba garba socdeen nimankii muhaajiriin ahaa ee marka kasoo haajirayay oo kusoo biirahayo madiine imaanayay runtii dhalinyarada markay imaada xagga diiniga diinta iyo dhalinyarada calaaqa noocay ka dhexayso waxaan dhihi karaa calaaqada ugu weyn يعني حتى النبي كستو معها نبي عليه الصلاة والسلام كليا النبي كستو إلهي وصول جري ضدك أجر جاري جري إلهي أكون بحنجري دان يري أبرنا يعني دينو تجنا نبي عيسى وكله حواريين تيوكله دان يري هاين runtii qisas badan oo dhalinyarada ku saabsan ilaahay quraanka kariimka waa kaga sheekay marka dowrka dhalinyarada waxa kan suuratul kahfi waati ilaahay kaga waramay quraanka 300 sinin oo 9 rajul yaray 300 iyo jajabka sano godka ku hoyday dhalinyaro ahayn marka dhalinyaradu runtii mar walba diinta oo lugnaxad ay u yihiin loona baahan yahay in ay maaragtay u istaagaan waayo waqtiga ugu fiican qof dhaqdhaqaaqa ay ku jiraan nabiga markii marka laga soo saaray alayhi salaatu wasalaam soo haajiray isagoo saxaabadiisa lagu horto jargareynayo la dilayo la baabi'inayo ayuu wuxuu aaday magaalada Madiina markii nabiga Madiina markuu tagayay muddo adigu u dhaxayso wax yar ka hor ayaa waxa ka dhalaacay dagaal u dhaxeeyay nima la yiraahdo Aws iyo Khasraj nima diga jiray Madiina degana marka odayaal badan oo meeshaas adigu salaadiinta ahaa ayaa ku dhamaaday kadib meeshii dhalinyaro isugu soo hartay ninka dhalinyaro markii loo sheego lagu yiri marka nabi baa ka soo baxay lagu dhibaateynayo waxay u diyaar garoobeen inay nabiga soo dhageystaan iyo waliba gacanta ku qabtaan kadib nabiga markuu Madiina tagay alayhi salaatu wasalaam intii joogtay oo dhan way wada islaameen kadibna in badan oo kamid ah watii uu Maka la soo galay isagoo wato nabiga alayhi salaam dadkii garbaha taagnaa ee diintan fidiyay ee daafaha caalamka u dirina dhalinyaro u badnaayeen kadib markii asxaabtii laga hadlo humaag markii laga bixiyay dadka asxaabtii waxay leeyihiin ayuu nabi maxamed dhex taagnaa alayhi salaatu wasalaam waxyigii baa kusoo degayo kalaamkii rabaa markaa la joogay ayagu dee wayba ka bulshadan kaleeto way ka duwanayeen walow ay dee example u yihiin qof walba muslimna ay example u yihiin waqtiga adag ay soo qaateen laakiin intii ka dambeysay xataa waxaa jiray rag dhalinyaro ah oo diinta door weyn ku lahaa dadaalay wax badan qabtay oo waxqabadkoodii uu muuqday annaga dhalinyaradeenna role modelkaas ma noqdo hadda tusaale ahaan kutubta ugu badan ee laga akhriyo kutubul axaadiis ula bilowgooda imaam nawawi kutubtiisa asagoo 40 jir ku dhintay dhalinyaradayada marka diinta barata role model noocaas oo kale tama u degsan yahay ay isleeyihiin gaaro diinta doorkan ku soo kordhiyo kitaabkan sharax soo yeelo hal abuur soo keena Soomaalida gudaheeda dhalinyarada Soomaaliya wallahi ni horta dadaalkaas waa jira oo dad badan oo dhalinyaro ah oo waliba xitaa culimadeena hadda nool tusaale hadaynu soo qaadano iyagoo yaryar bay bilaabeen fidinta diinta runtii anigoon kala qaadaynin guud ahaan culimadeena in walba markaad muuqaaladooda dib ugu laabato 35 sano 30 sano ka hor muuqaalo laga duubay waad ka arki kartaa Sheekh Maxamed Cabdullahi iyo Sheekh Xasan iyo culimada intooda badan Sheekh Shibli iyagoo yaryar bay bilaabeen diintan kutubo badanna way qoreen kutubo badanna way sharaxeen haddana yaalo laga faa'iideysto sheekheeni weena Sheekh Shariif maxaa ninkii ku dhiman jiray Madiina Makka ay u bixiyeen carabta duudul maktab naha dixriga maktabkay u bixiyeen Shariif Abdunuur rahimahullah rahmatan wasi'a isagoo yar buu diinta barashadeeda soo galay waqti kooban ayuu Ilaahay ugu fududeeyay inuu quraankii iyo diintii ku xifdiyo kadibna uu noqdo fataawi inuu siiyo dad Carabeed oo wadanka ay ku dhasheen iyo dadka ay ayaga ahayn ee ku noolaayeen inuu bilaabo inuu xitaa u fatwoodo masaa'il diini ah way jiraan dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo rool ah culimadeena waaweyn walow hadda maanta dad waaweyn noqdeen laakiin iyagoo waqtigooda soo qaateen kutubada iyo sharxeena u yaalaan haddaynu u imaano dadka hadda nool xaaliyan oo dhalinyarada oo xaaladeena oo kale ah wali dadku waxbarasho ku jiraan in badan oo kamid ahna waxaan rajaynayaa inay ku fikirayaan
inay ayagu naftirkooda dadkoo kale fikrado duwan yihiin inay culumtaas iyada wixii ka geysan karaan ay ka geysan qaar badan oo kamidana hadda way nool yihiin oo sharaxaad noocaas sameeyey oo kutubo badan sharax waxaa isbedelay wacyigii nololeed ee dadku ay ku jireen waxaa laga yaabaa intuu halkan ka tago ardaygu inuu xorow u aado iyo gobol kale iyo deegaan kale safar dheer u galo maanta wuu isbedelay wacyigii wax badan baa fududaaday social media yimid walow negativekiisa aan u imaana qaybta positivekiisa marka la yimaado dhowr nooc ayaa maanta jirto culumta diiniga fidinteeda oo culimada waaweyn marka laga yimaado dhalinyarada ku leedahay ama ay uga faa'iideystaan social media hanada maanta jooga ama ku gudbiyaan ama kaga faa'iideystaan ayagoo wax kaga bartaan